ciyaartii haddaba sida gaarka loo sugayena waxa ay ahayd tii ka dhacday istaadiyaha Anfield halkaasi oo kooxda Arsenal ay marti ugu ahayd kooxda Liverpool. Arsenal waxa ay isgeysay Anfield iyadoo ugu sarreysa horyaalkaasi yeeshee waxa ay ka noqotay iyadoo xambaarsan guuldarro culays uu ka batay oo ay la dhadhacaysay qaadisteedaba. wixii ka dhacay istaadiyaha Anfield waxa uu ahaa wax taariikhda galay maxaa yeelay 20 daqiiqo gudahooda ayaa Arsenal lagu baduujiyay oo sidii buunshiyo oo kale loo xanshiriyay iyadoo laga dhigay koox waxnaya how ah. 20 daqiiqo gudahooda ayaa waxa laga dhaliyay 4 gool oo lama arag lama maqal ah. waxaana la dhihi karaa Arsenal maba jirinba dhinac ay ka toosneed waxa fadhiid ahaa difaaceeda oo goolkeeda waa iska haawanayay khadka dhexe ma jirin oo waa la waayay meel uu ka baxay afka horena waxa la isweydiinayay in jiro uu ciyaarta qayb ka yahay iyo in kale maxaa yeelay isna lamaba aragba oo waxa uu waayaba ciid balooniga u soo falaashta sida ay ciyaarta ku bilaabatay ayaaba la yaab lahayd daqiiqadba kama soo wareegan markii balooni uu soo darbeeyay Gerrard uu madaxa la helay Skrtel halkaasna ka dhaliyay goolka hore ee Liverpool. Usually does well and it is a good one and it's into the net. Liverpool have scored. Martin Skrtel turns and looks. The flag stays down and Liverpool lead right from the off. wuxuuna ahaa gool naxdinta ay ka qaaday Arsenal ay ka soo kabsan weysaba maxaa yeelay daqiiqadii 10aadna waxa mar kale ka sii naxsaday Skrtel oo goolka labaad ugu shubay shabaqa waardiyaha ka hayay Chesney. From Gerrard, Skrtel there again. Skrtel scores again. Liverpool 2, Arsenal 0. We haven't played 10 minutes yet. Arsenal undone by 2 set pieces. markaasi wixii ka dambeeyena Liverpool waxay aragtay in kooxda ay la dheelayso ay biidha tahay waxaana ay ku qarqisay weeraro joogto ah daqiiqadii 16aadna waxa goolasha Liverpool 3 ka dhigay Sterling successfully. Henderson away with it. Look at Sterling to the left. Henderson didn't. It'll come to him anyway. Sterling makes it 3. Arsenal's players looking shocked as the majority inside Anfield celebrate what is for them a dream scoreline. 3-0 Liverpool. waxa ay noqotayba sida doonto u toogo shabaqa Arsenal oo u kala daadatay sidii tusbax xarigii ka go'ay taasna waxa ay sababtayba in daqiiqadii 20aadba uu goolasha Liverpool uu 4 ka dhigo Sturridge oo ka faa'iideystay balooni uu si qurux badan ugu soo gudbiyay Coutinho. So Wilshere short, Coutinho in to win it. Through for Sturridge, who's onto it. Sturridge in on goal for 4! What a pass! What a finish! What a day for Liverpool! halkaas ayayna ugu dhamaatay Arsenal maxaa yeelay 20 daqiiqo gudahooda ayaa daakum laga dhigay oo lala simay cawska istaadiyaha Anfield Road. waana kari weydaba inay madaxa la soo kacdo oo waxa mar walba balooniga gacanta ku hayay ciyaartooyda Liverpool. qaybta hore waxa lagu kala nastay 4-0 kaasi qaybta labaad markii la isu soo laabtayna ayaa daqiiqadii 7aadba waxa gool shanaad ka dhaliyay Arsenal Sterling. He's taken it under control. He's got Sturridge square. He's got Chesney in his way, but not second time. Not second time for Sterling in the game either. He's got 2. Liverpool have 5. intaasi wixii ka dambeeyana Liverpool waxa ay hoos u dhigtay qaab ciyaareedkeeda iyadoo isku hubta in Arsenal aanay waxba isku haynin. haddii Liverpool ay u ciyaar lahayd sidii ay u dhashay qaybta hore goolal badan ayaa ka dhalan karay Arsenal. si kastaba Arsenal waxa aakhirkii ay heshay goolkeeda calanka wuxuuna ahaa rigoore uu gool u bedelay Arteta. And Arteta does. The goal is celebrated by those Gooners still in the ground as though ciyaartuna waxa ay ku dhamaatay 5 halkaasi oo lagu xaaqay Arsenal oo kadib jugtii cusleed ee ka soo gaartay Man City oo istaadiyaha Etihad lagu liqsiyay 6 gool ayaa waxa ay u soo hooyanaysaa London iyadoo dhabarka ku sidata guuldarro kale oo aad u xanuun badan. dad badan ayaana shaki ka qaba in Arsenal sida ay u dheeshay marka la fiirsho inay qaadi karaysaba horyaalnimada Ingiriiska. arbacada soo socotana ciyaar kale oo aad u adag ayaa sugaysa oo waxaaba istaadiyaha Emirates ay ku marti gelin doontaa kooxda Manchester United. tababaraha Arsenal Wenger waxa uu qirayba in dhinac walba kooxdiisa looga awood badnaa. We had a very poor day defensively.